inta aanan gelin dhismahan waxaan doonayaa inaan idiin bushaareeyo waa ogeedeenoo xoolihii way naga xidhnaayeen dhoofkii xooluhu way naga xidhnaa saddexdii cishe u dambeeyey dhaqdhaqaaqii sayladda xooluhu sideedii buu ahaa waxaanan idinku bushaaraynayaa xoolihii in laynoo furay oo xajkan ay dhoofayaan ninkii shilinka hoos u dhigi jirayna saakaba ha qusto xoolaha marka la furay sicir bararkii iyo sarifkii adkaadayna waanu ka raysanaynaa insha Allah waxaan doonayaa kale midda labaad inaan shirkadda dahabshiil ku hambaliyeeyo dhismahan iyo maalgashiga kale ee ay dalka ka sameeyeen ee faraha badan leh magaalada Berberana waxay u tahay fursad iyadoo hudheelada waaweyni ay ku yaraayeen inkastoo jireen hudheelo waaweyni haddana inuu kana yahay mid class ah oo ku soo kordhay inuu yahay waxa soo dhamina waxay daba socdaan heshiisyadii ay xukuumaddu hirgelisay uu ka mid ahaayeen DP World iyo kuwii kale ee airportka lagu dhisayay oo soo kordhiyay maalgashi iyo inuu qofkii daneeyo inay Berbera qiimihii ay lahaan jirtay yeelanayso reer Berbera waxbayaan la odhanin waa qof iyo waa qolatoona waxa iska yara jira sida wasiirka ganacsigu sheegayay marar fara badan oo nin itaalkiisu ama laga yara xoog roonaaday ama tartanka si uun looga xagliyay uu qabiilka dabada geliyo kaasaa dabadeetana reerkana magaxumo u soo jiida oo la moodaa in dadku sidaa wada qabaan laakiin waxaan ku kalsoonahay inaanay reer Berbera cudurkaasi jirin caasimadna ay noqonayso magaalada qure aynu leenahayna ay tahay magaalooyinka kale oo dhami sayladda xooluhu markay si noqdaan ayay si noqotaa magaaladanise magaalo sayladda xoolaha qura ku xidhan maaha waa magaalo badana ku xidhan berrigana ku xidhan waa marinka quraynu leenahay ninka maalgashi ka sameeyana waa maxamed ganacsadayaasha ugu xariibsan buu ku jiraa maxamed Saciid wuu ogiyay markuu hudheelkan dhisay inay ka soo noqonayso lacagtii uu geliyay waayo shirkadda halkan maalgashiga ka sameynaysa way fahmi karaysaa Berbera mustaqbalka ifaya ee maalmaha soo socda ay la imanayso laakiin waa mid inaanu ogaano waxa soo dhami waxa ay ku tirsayin taladii xukuumaddu ay Berbera ku xasilisay ee ay dunidana ugu keentay in layna aaminana ay ku suurto gelisay inagoon liisan lahayn bal ninaan liisan lahayn loo itraafku waa liisan dawladaan liisan balahayn oo haddana dunidii heshiisya la gashaa teenana koowa oo la aqoonsado marka wax qabadkaana noo hayo markuu mar dhow madaxweynuhu soo kaco madaxweyne ku-xigeenku dee ugu sacbiya ilan guulihiisay ka mid tahay waa wax aynu wada leenahay oo suurtagal noqday mid labaadna waan ku rajo weynahay insha Allah waan ka mid noqon doonaa kuwa dahabshiil wax ka amaahda weli man ka amaahan laakiin waxaan maqlayaa in dad fara badan carabka ku hayaan oo ay leeyihiin banka dahabshiilna lacagta uu maalgeliyaa dadka marka 4 bilood markay dhamaadaan ayaanu siiman doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh